الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا ليال إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يكون كي لواد سان هوري إذن كغبلان قادي إنان إذن سو قدبية فيديويال fara badan oo wax ku ool ah oo idinkan aad iyo aad ugu faa'iidi doontaan dhageysi wacan ha isku kala goonin xaraarada bilow ilaa dhammaad waa inaad dhammaysataa waa huwa markaad dhammaysatid in maxaan ku iraadaa aad asxaabtaada usii gudbinaysid insha allah ilaahay idinkiisa soo gudbinta waa xaggayga idinkana waxaan idinkaga baahanahay inaad faafinta aad igu dadaashaan subscribe-tan ha iloowina like-ta waxaan kaloo arkay walaalayaal in markaad aad daawanaysaan aadan subscribe saarin markaad daawanaysa subscribe saar si notification uu kugu soo dhaca mar kasta oo video soo geliyay video marka hadii subscribe aad tahay video kasta markaan soo geliyay wuu ku sheegay wuxuu ku leeyahay waxa video ninkaan soo geliyay wuu ku sheegay subscribe saar marka walaalayaal allah ku barakeeyo wixii talan hoos nala wadaag maanta maxaan idin wada walaalayaal markaad aragtaan waxaan idin wada arrin cajiib ah oo idin maxay raali gelisa oo faa'iidooyin fara badan aad halkaas kala tagtaan walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan isdul taago oo ka hadla dhacdo ka dhacday meesha la yiraahdo Xalab waa Suuriya ay ka dhacday waxaa ka sheekeynaya oo soo guurinaya ninkii ay ku dhacday oo la yiraahdo Saalax wuxuu leeyahay waxaan u socday halka iyo Xalab Saalax waa ganacsato weyn oo ilaahay hanti u gacanta ka geliyay طيب anigoo socdo wuxuu leeyahay oo Xalab iyo dhulkaas u socda oo ganacsi dhulkaas u socday dabcan ayaa dhulkii ayaa la mari kari waayay maxaa yeelay dhulkii waxaa isku gidaamay snows ama baraf dhulku waa dhul qaboob habeenkii marka baraf ayaa da'ay marka subaxii qoraxda markay soo baxda ayuu dhalaalay kadibna waa la mari karaa marka meeshii ayaa la mari kari waayay baraf awgeed marka sida caadada ahna dhulkaas dadka maraya guryaha meelaha ku dhow waa guri badan meesha ku yaalaan hal guri ama laba guri wax noocaas oo ku yaala dadka guryahaas ay ku leexdaan dabeetana waxay weydiistaan inay habeenkaas ay la seexdaan xoolaha lacagna ay siiyaan dabeetana subaxii ay safarkooda ay ka sii wataan ninkan Saalax la yiraahdo marka maadaama dhulkii aan la mari karin dhulkan uu madow yahay wuxuu maagay markii inuu ku leexdo guryaha guri kamid ah si bal uu ay u siiyaan meel uu seexdo lacag yarna iska bixiyay marka guri ayuu ku leexday markaas wuxuu yiri dhulku waa madow yahay oo burcadkaas madow weeyaan dhulkiina waxaa isku giidaamay baraf fara badan meel la mari karo marka waxaan damcay inaan marka caawa aan had isiisaa meel aan seexdo xawaha yar aan iska bixiyo subaxin aan meeshii aan safarka sii wato way soo dhaweeyeen waxay gacan furan ku soo dhawow way soo dhaweeyeen reerka marka waxaa way 3 qof ayuu ka kooban yahay waa hooyadii qoyska iyo aabihii oo nin waayeel ah oo duq ah iyo hal cunug ay ka naxaan ifka hal cunug ay ifkaba ka dhaleen waxa weeyaan aad bay u jecel yihiin laba qolna way leeyihiin qol waxaa seexda odayga iyo xaajidiisa ayaa seexda qolka kalena wiilkooda ayaa u seexda طيب waxay marka ay sameeyeen marka qolkii wiilkooda seexanay dhinaca u jiif ma dhinaca kala ayay firaash u dhigeen joodari ayay u dhigeen dabeetana waxay dhaheen adiga halkaan seexanaysaa xilli dambe ay miiska isku yimaadeen si ay u casheeyaan marka cashadii ay qaateen iyagoo reereen iyo farxad iyo kaftan ku wada qaatay oo quslaya dabeetana ninkii uu seexday marka iyo wiilkii qolkooda galeen labadan kalena qolkooda ay aadeen xilli dambe ayaa maamadii hooyadii guriga ayaa ninka odayga ah waxay ku tiri waa ninkay waa xajigeeda ayaa waxay ku tiri warheed war ilaa ii goormaan faqiir ahaanayna qoyskan waa qoys sabool ah markaas waxay tiri ilaa ii goormee odiyow
aan faqiirnimadan ku jiraynaa caaweyto waxaa noo timid lacag ayaana soo raasatay markaasa wuxuu yidhi lacagtaa sheegi maxaa wuxuu yidhi nin ganacsato ah ayaa caawa noo yimid waa adigaas oo arkaayo kariiradka u buuxo yaa lacag fara badan ayuu wataa see ku aragta marka walaalayaa lacagta waxaa weeyaa markuu lacagta siinaayo waxyar usoo bixinaayo habeenkaas wixii la isticmaalaya uu siinayay ayay aragtay markaasay indhaha taagtay naagtii waxay dhahday bismillah waxaanoo lacag muu ninkaan haystaa ay dhahday dabeetana isla markiiba qalbigeeda waxbaa ku dhacay waxay tiri ninkan waa inaan caawa dilnaa oon duwanaa odayo fadhiga ka kac oo xoolihiis aan qaadanaa wuxuu yidhi walaali maxaa kugu dhacsay wax u jiraan bismillah maxaa waay ninkaa martida ama kaa baxsan markaas wuxuu yidhi war adiga odayga wax makuu sheegaa ya aniga maxay ahayd faqiiraan nahay dad faqiiraan nahay tabartaada la fiirsadaa ma garata tabartaada lala socdaa waxba meesha maku haysa wax ma keenaysid meeshaan fadhiisato qaadinaysaa war ninkan caawa waa fursadna soo martay waa dahabi fursad dahabina soo martay weeyaan qof kaloo san oo kale noo imaana ma garanayn inaan noo imaana in kale ninkan waa adigaas arkaya lacagtiisa ay maxaa la jiray iskoran kartay ay maxaa la jiray aad iyo aad ay u badan tahay lacagtaasaan qaadanaya meeshaan wax digan ma laha waa duur magaalo maha meesha sheekh waa inaan marka ninkan dilnaa subaxiina aan duugnaa cidna arkays ma laha yaana tabay lacagtan aan ku baashanaa nolosheena inta ka dhiman lacagtan waa ku raaxaysnaya tiri adiga ninkii odayga ahaa marka wax badan markay uu ka cagajiiday ayadan say u aqrinaysa dumarka waa yaa shaydaan waa joogaa meesha mogtahay ilaahay khayr fara badan ha siiyo dumarkee laakiin marar qaar shaydaanka ka awood badinaya maamadii meeshaan ahayd waxbaa ka awood badiyey shaydaankii ayaa ka guulaystay ninka odayga ahayna bedelkii ragnimadiisa oo isku qaban lahay isigana xaajiyadiisa ayuu dhinac ka raacay marka dambe sidii dhagta looga hayo oo dhagta macnaa dhagta waxaan ka wadaa sida hadal ay ugu aqrinaysa ee madax ugu qaraacaysa marka dambe duqiyo waxaa la arkay odaygii wasaan ku hay hadday gasho yiri mugta markaas wuxuu yiri nacam caawa inaan dubanaa aloo keen ninkii ayib ninkii isaga ahaa wuu ku waafaqay wuu ku raacay wuxuu yiri waa inaan dubanaa markaasa waxaa la yiri marka haddiiba la isku raacay waxaa la yiri haye aalad wax lagu dilay ilaan aalad ciyaar ah oo qofka qiiq siinaysa oo qofkii oo naftana ay ku jirto qofka aanan dhimanin naftana wiilina ay ku jirto lama rabo waxaa la rabaa qofka dhag in la sii nafta ay ka baxdo sidaasay dheheen subxaana allah malikul qudus marka waxay dheheen niyow dhegeys odayow hana ceebeenin qorshahan hanaga fashilinin qorshaha inuu hirgalo ayaan rabnaa wax ordaaya oo dhaawac ah ama wax baxsanaya meesha ma rabno dhufashada ugu horeysa odayow inuu ninkan nafta ka baxdaan rabnaa nafta inay ka baxda dhufashada ugu horeysa aad ku dhufanaysa ayaan rabaa ninka wuxuu yiri bahal bud weyn oo qofka hal mar haddii madax lagu dhufto walaalayaal khalaas ay tahay ay nafta hore ugu baxaysa ayaa la sameeyey dabeetana qolkan kale maxaa ka dhacay marka wiilkan iyo ninka ganacsatada ah maxaa ka dhacay ayagana waa kana waxaa weeyaan wiilkii ayaa soo xilli dambe ayuu soo baxay wuxuu u yimid ninkii ganacsatada ahaa wuu la sheekaystay wuxuu yiri meeshuu ka yimid meesha u socda ganacsigiisa wuxuu yiri niyo ana xataa ganacsiga waan rabaa inaan gala wax iga sheeg wax iga bidhaami wax iga tataaba ninkii ayaa u sheegay ganacsigii wixii ay u faahfaahiyey dabeetana xilli dambe ayay isla gaareen kadibna waxay sameeyeen walaalayaal wiilkii meesha ayuu ku gamaay macnaha wuu ku dhacay hurdo ayaa qabatay ayib meeshii ayuu seexday wiilkii ninkii martida ahaana meeshii wiilkii kama uusan kicinina mare ayuu u huubiyey firaashkiisa ayuu ugu kacay isagana wuxuu seexday firaashka wiilka ayuu aaday u seexday ayib markii la gaaro marka 8 saac abaaraha 8 saac habeenimo markii la gaaray oo qorshihii markaan la rabo in la fuliyey odaygii waxay dhaheen war dhegeyso odayow caawa hurdo ma laha berri waa iska seexan kartaa ninkaan subaxii u bixaaya caawa inaan dhafarna hurdo ma laha gundur lama rabo meeshaan waa inaad indhahaada ay feedinaadaan si fiican indhaha u kala fur hurdo caawa ma jirta waa inaad qaxwo iyo shaah iyo wax un aad isku maaweeleyso waa inaad cabdaa ma garatay qorshahan ha iga fashilin waa fursad weligii ima soo maraystan oo kale ayib hayuu yiri 8 saac markii la gaaray dee wuxuu soo qaatay aaladii ninkii lagu qaarjin lahaa
ayadana way daba socotaa walaalayaal meeshaan ma laha koronto ma jirta nalna ma jira laambad wax laa ma jiraan waxaa la isticmaalaa faynuus iyo waxaa la isticmaalaa toosh ayaa la isticmaalaa tooshkii iyo wixii faynuus ay soo qaateen marka iidana waa daba socotaa bal maxay ka daba socotaa iidaa waxaan dhammaal balaayadan keentay waxay rabtaa inay hubsato waxaan flop inuu macnaha balaankan inuu flop noqdo ma rabto inuu hirgelay rabtaa balaanka way hubsanaysaa marka waxay rabtaa ninka meel yar markuu ka yar halaabo uu ka yar macnaha uu ka yar wacdo inay hagaajisay rabtaa war meesha saasay u daba socotaa marka say soo daba socdeen gurigii aayar la furay waa mugdi marka gurigii tooskan in la daar lama rabo mugdi waxaa yeelay hadhow waa la fahmaya ninkaa soo kacay dee wuu bilaaway un wax yar markuu madaxu saan u taabto markuu arkay inuu asiga yahay wuxuu isdhahay waa asiga intuu ilaahay ayuu ku dhuftay dhag cawaadka yeeray walaalayaal cawaadka yeeray ninkii martidaa soo kacay marka waaba ninkii martidaa meeshaan fadhiyay ninkay dileen yaa waay wiilkooda iska dileen waxay dileen yaa waay inankooda iska dileen ninka martida ahaa qaayaladii wiilkooda qaayalada markii la dilaay uu sameeyey ayuu ku kacay wuxuu yiri war qayladan waa maxay bismillaah qofaa la dilaa maayna waxa ma waa yaabeen waxay dhaheen war hayda codkan ninkii ganacsatada u eka ya war waxaan dilnay waxa noocay waay dabeetana waxaa la shiday finance waxaa la shiday nalkii haddii saan la dhahaa ninkii martidii ah meesha fadhiya ninkay dilay waayo waa wiilkooda iska dileen musiiba maxay sameeyeen halkii ayay ku suuxeen ninkii oo martida ah ayaa walaalayaal bilaabay biyo inuu ku rushay maxaa wiilkiina u disheen war maxaa idinku dhacay halkii wiil kaliya aad qabteen waaye maxaa idinku dhacay ma waalateen see wax u jiraan ayib adiga warkii waa fashilin wamakaruu wamakara allah wallahu khayru lmaakiriin way dhakreen waxaad qorshay u maleegeen ilaahayna qorshe ayuu maleegayay markay wax maleegayeen kumaysan xisaabtamin ilaahay ayaa idin jeeda ma dhihin iyaga qorsho markaad wax sameynaysid waa inaad ogaataa ilaahay subxaana wa tacala inuu kuu jeedo mogtahay ya wallahu gaalibun calaa amrihi ilaahay subxaana wa tacaala lagama guulaysta isagaa markastaba guulaysanaya amarkiisu wuu ku adkaadaa ilaahay subxaana wa tacaala waxay rabeen inay ninkan shirqool u degaan ay qaarijiyaan laakiin wiilkooda ayaa la qaarijiyey ya waxay dhahaan soomaalida good sireed ha qodin haddaad qodina ha dheereenin maxaa yeele inaad ku dhici doontid inaad ku dhicdaa laga yaabaa ayib waa kaas waxay rabeen ninkaan ay rabeen inay shabaq soo geliyaan wiilkooda ayaa kusoo dhacay wiil la-aanaa ku dhacay ninkii ganacsatada ah subaxii waa iska dhabaandhabaaday cimaamadiisu garabka iska saartay oo iska baxay iyo hadda khasaare qaba ya walaa yaxiiqu lmakru sayi ilaa biahli yacni xumaantu walaalayaal adiga unbay kugu soo laabanaysaa xumaanta adiga kugu soo laabanaysaa hadda waa kaas waxay maleegayaan kulli ayaga usoo laabatay ayib hadda ninkan martida ah lacagtiisa iyo naftiisa waa u badbaaday soo xagarta maaha wiilkoodana waa iska dileen hadda ninkaas subaxaas uu baxayaa khasaare qaba khasaaraha ugu weyn iyaga qaba horta ilaahay waa u caraysan kow wiilkooda waa iska dileen ayagay waa kana waa xanuunsan yihiin oo biyaha lagu bilbilayaa sarirtay saaran yihiin murug adduun ninkii oo martida ahaa ay isku ceebeeyeen ya rasuulkeena muxuu leeyay sala allahu alayhi wasalam man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu war ninkii ilaahay iyo maalinka qiyaamo rumaysanow martidiisa ha sooro meesha ma martiyaa la soora hadda marti maa la sooro meeshaan marti lama soorin martidii waxay ogaatay in qorshe lala damacsanayo laakiin ilaahay uu ka badbaadiyay intaasoo shay ayay isku darsantay bal fiiri maxay xasdaayeen ninkan ay xasdaayeen maxay ka xasdaayeen xoolaha ilaahay uu siiyey ninkan xoolo fara badan oo ilaahay siiyey ayagan ilaahay faqiir oo ka dhigay maxaa laga reebay marka ninkan xoolaha qofka la siinayay xoolo badan ilaahay haddii ku siiyey ma aha inuu ilaahay ku jeceli waa imtixaan
ashkuru am akfur weeyaan ma shukrin doontaa mise waa kufrin doontaa saasaa laga wadaa ma way jecel maaha midkaan faqiirka u imaado faqiir ilaahay wuxuu kaaga dhigay ma aha nacayb ilaahay uu nacayb uu ku qabo ma aha ee waa imtixaan ibtilaa lisabrika way inuu ku imtixaana sabarkaada heerkuu gaarsiisan yahay ayuu rabaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ogaado haddii aad sabartidna nin sabraasaad helaa la yiree sabarka markaad sabartid kadib ayaa faraj ilaahay uu ku furlahay laakiin adigi yaaba degdegayaba ya maxaad u degdegaysaa qofkan walaalkaada ah maxaad u xasdaysaa waa amraadul qalb ayaa la yidhahdaa walaalayaal cudurrada qalbiga ku dhaca weeyaan xasidka ayuu ka mid yahay marka qofkan aad xasiis kuma oga asiga ya xanuunka iyo dhibaatada aad dareemaysa iyo ciriiriga aad dareemaysa asiga ma oga mar walba adiga aad qof xasadina adiga ilaahay hoos oo kuu dhigi oo darajada aad joogtay ka hoosa lagaga sii dhigi qofkan aad xasdaysina koraa loo siyaadina si aad ciil u bidid ciil in lagugu dilaa raba maxaa yeele adaa lagu kari wayso maaha xaasinimada intay kaa badatay xaasinimada kaa badatay soo maaha marka waxaa la rabaa haddiiba aad xaasinimada kasoo noqonayni ilaahay qofkan adiga aad xasdayso usii ziyaadina qofkan aad xasdayso ogow waxba kama nusqaamaayaan ilaahay wuu usii ziyaadina si adiga lagugu xumay maxaa yeele adigii adaa qalbigaada uga saqiisan qalbigaada waxaa ka buuxa xaasinimo iyo uqudad iyo balaayaa ka buuxda qalbiga aan iska nadiifin walaalayaal qof walaal haddaad aragto ilaahay uu wax siiyey hadday noqoto cilmi xoole hadday noqoto jaga hadday noqoto magac hadday noqoto ilaahay u barakay dheh haddaad saas dhahdid ilaahay adiga kuu barakeynaa adiga ayuu kuu barakeynaa adduunyada sideedabana walaalayaal laisma raaci maanta ninkii haysta bir ma haysta maxaa marka wax noocaas oo kale aad iskugu murjinaysaa wax noocaas oo kale maxaad iskugu murjinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waxaan bixiyay waxaa kaloo ay ka dhigan tahay adigoo dhahaya ilaahayow maxaad qofkan waxaan u siisay u fiirsa waa adigiioo dhahaya waxay la mid tahay adigoo dhahaya xaasinimadaas waxay la mid tahay adigoo dhahaya ilaahayow waxa maxaa u siisay qofkan ilaahay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay lama weydiiyo wax uu sameeyey ilaahayow waxa maxaa u samaysa lama dhaha ilaahay subxaana wa tacaala ya marka walaalayaal waa badan yihiin faa'iidooyinka dhacdadan ku jirta laakiin inta kale idinkaan idin dayni allah idin barakeeya commentada kusoo qora wixii faa'iido aad ka fahanteen walaalihiin ha akhristaan midii kaleed walaalayaal share hit the like button share it comment it like it intaas waa iga kaftan marka allah idin barakeeyo waad mahadsantihiin wanaagga aan iskugu kaalmaysana ilaahay muxuu leeyahay subxaana wa tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ilahay saasuu leeyahay subxana wa tacaala wanaagga iskugu kaalmaysta xumaantan ha iskugu kaalmaysan marka fiidiyoya fara badan idin soo wadaa oo kuwan kasii daran aad iyo aad ugu bogan doontaan laakiin maxaan idinka rabaa inaan isbiirsano gacanta aan isaqano gacmo wada jira wax ku goodaan walaalihiina gaarsiiya allah idin barakeeyo hooyooyinkiina gaarsiiya walaalihiina gaarsiiya asxaabtiina facebook gaarsiiya asxaabtiina whatsapp gaarsiiya asxaabtiina instagram gaarsiiya aaladahan isku xiriira gaarsiiya allah idin barakeeyo waxaan rabaa midii kaleetana subscribe saara markaad daawanaysid subscribe markaad saartid daawo laakiin inaad daawatid subscribe aadan saaran xasaaran walaalo saasa sameyn ya niyad hanaga jibinaya qay walaalo bal adiga channelku waa channelkiina ma garateen idinkaana kor u qaadi kara idinkaan hoos u dhigi kara allah idin barakeeyo waan idin jecel runtii aad baan idin jecelahay ilaahay dartiis ayaan idin soo gaarsiinaya waxaan aniga adduunya waxaan waxba kuma raadinay marka khayrka sideeda banaan khayrka aniga nafteyda aan jecel waxaan rabaa inuu aniga iiga soo gudba dabeetana uu idinka idin soo gudba idinkana maxaan rabaa marka inaad sida aniga uu iiga soo fulay idinkana inaad sidaas oo kale aad usii gudbisaan allah idin barakeeya inta video kale aan ku kulmeyna waa inuu videoga xiga hadduu ilaahay yiraahdo iyo is aragti dambe oo xiise leh هذا وبالله توفيق
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.